wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ciidanka booliska maanta faray oo ah 2 Janaayo 2022 inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho kadib khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo hay'adda NISA si gaar ah ciidamada ku sugan garoonka aadan cadde. Wasiir Cabdullaahi ayaa hay'adda NISA ka dalbaday in laga bilaabo maanta ciidanka dharcadda ah ee ka soo saarta garoonka maadaama ay qalalaase ay ku lug leeyihiin ay marar badan gudaha garoonka ka dhacaan. Booliska Soomaaliya ayaa saldhig ku leh gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Taliskaas ayaana ka shaqeeya ilaalinta nabadgelyada dadka soo galaya iyo kuwa ka degaya iyo kuwa ka safraya sida uu sheegay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur. Wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in ciidanka NISA uu amray in laga soo qaado garoonka aadan cadde ay yihiin kaliya kuwa dharcadda ah isla markaana ay qalaaso xoogan ka wadaan garoonka waa sidoo hadalka u dhigay. askarta ku sugan baraha hubinta laga soo gala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayuu sheegay in ay sii joogayaan oo ayna ku socon warqadda uu soo saaray sida uu hadalka u dhigay Cabdullaahi Maxamed Nuur. isbeddelka la xiriira ciidanka NISA ee ka howlgala garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa uu quseeyay kaliya ciidamada dharcadda ah ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha ma ahan kuwa quseeyay ciidanka gacanta ku haya baraha kontarool ee laga gala garoonka aadan cadde ayuu yiri wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. khilaafka Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo sidoo kale ciidanka dharcadda ah NISA ee ku sugan garoonka ayaa yimid kadib markii shalay la isku khilaafay habka loo soo dhaweynayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagareen oo ka soo degay Muqdisho. waxaana khilaafkaasi sababay markii isku yimaadeen mas'uuliyiin ka kala socda xafiiska ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo isku khilaafay habka borotokoolka iyo sida loo soo dhaweynayo oo qolada kale u sheegtay in ayaga looga dambaynayo. hadalka wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaana u egmid uu kaligiis go'aan iska qaatay maadaama ciidamadii halka ku sugnaa ay dhinaca Farmaajo mas'uuliyiinta ka socday ay xigsadeen. taas ayaana keentay in amar uu ku bixiyo in laga saaro garoonka. amarka ka soo baxay wasiirka amniga dowladda Soomaaliya waxa qayladaan xoogan durbadiiba ka muujiyay dowladda ay ka mid yihiin Mareykanka kuwa oo ugu baaqay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka in si degdeg ah looga noqdo garoonka isla markaana ay hadalka mid aan xilligan loo baahnayn isla markaana doorashada dalka mugdi kale iyo muran kale sii galinayo. Yaasiin Farey taliyaha ku meel gaarka ah NISA ayuuna ugu codsaday in 24 saac gudahood looga saaro ciidamada ku sugan gudaha garoonka aadan cadde ee dharcadda ah NISA. lama oga sida ay NISA u dhaqan gali doonto amarka wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur maadaama uu si gooni ah la sheegay inuu Yaasiin Farey uga amar qaato oo aysan isku wanaagsanayn ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Farmaajo uu hoos tago. xiisad ayaana ka taagan garoonka maadaama ay maanta ku ekeed waqtigii loo qabtay ciidamada in ay isaga baxaan gudaha garoonka si guudna mas'uuliyadda amniga ay ula wareegaan maanta oo ah 2 Janaayo bisha koobaad labadeeda. ciidanka booliska Soomaaliya ee ku sugan garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho waa sida ka soo baxay amarka wasiirka amniga dowladda Soomaaliya oo la ogeyn sida uu dhaqan gali doono. shirka lagu waday in dhawaan ay golaha wadatashiga qaranka uga furmaan magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu lafaguri doonaa 2 qodob oo dhabarjab ku ah Farmaajo. shirka golaha wadatashiga qaranka oo la filayay in Isniinta uu ka furmo magaalada Muqdisho kadib markii ay soo wada gaareen dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka caasimadda. hase yeeshee shirkaas ayaa wajahaya caqabado xoogan waxaana yar fursadaha lagu qaban karo in lagu meel mariyo 2 qodob oo xasaasi ah kuwaas oo gadaal ka riixayaan ra'iisul wasaare Roble iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka. sida aynu xogta ku helnay qodobka koobaad ayaa in deegaan doorashada dalka lagu soo koobo hal magaalo. qodobkan ayaana waxa si gooni ah u daneynaya Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland iyo Cali Guudlaawe oo ayaga caqabad ku tahay ka haysata magaalooyinka Garbaharey iyo sidoo kale Beledweyne oo labadooda midba aysan tagi karin. ra'iisul wasaare Roble ayaa markii hore ka cagajiday fikradan waxaana la sheegay inuu hadda taageero kadib markii uu isku soo xumaadeen Farmaajo aad isugu hor yimaadeen arrintan horeyna uga digay. qodobka labaad ayaa in ra'iisul wasaare Roble uu doonayo in shirka laga soo saaro baaq ah in amniga dalka si buuxda ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo haddii taasi dhicina in dalka doorasho hufan aysan ka dhici karin. sida la og yahay Farmaajo ayaa hore ra'iisul wasaare Roble ugu wareejiyay amniga doorashada balse taasi wax weyn ma bedelin waxaana wali hay'adaha amniga si buuxda gacanta ugu haya Farmaajo. ra'iisul wasaaraha ayaa la rumaysay haddii golaha wadatashiga qaranka ay qodobkan isku raacaan in shuruud uga dhigayaan dhamaystirka doorashada inay hogaamin karto in beesha caalamka ay cadaadis ku saarto madaxweyne Farmaajo inuu sameeyo inkastoo ay u badan tahay in Farmaajo uusan marnaba taasi aqbali doonin. Roble ayaa qorsheynaya hadduu amniga uu gacanta ku dhigo inuu bedelo dhammaan taliyayaasha ciidamada dalka si uu awoodda dalka si buuxda gacanta ugu dhigo. si kastaba Qoorqoor Laftagareen madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa ku xiran Farmaajo ayaana lagu wargeliyay inaysan marnaba ogolaan labadan qodob waxaana diidmadan ay ka dhigan kartaa in ay shirkani ku soo dhamaadeen natiijo la'aan ama laga soo saarin qodobo aan macno badan lahayn guud ahaanba shirka muddada ka socod doona Muqdisho.
qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu furayo shirka golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka cakiran diiradda lagu saari doono ayaana laga dareemayaa magaalada Muqdisho. Qorshaha ayaana in maalinta beriyo shirkaasi uu ka furmo laguna dhameeyo caqabadaha iyo midmadowga xilligan doorashada Soomaaliya ee muranka badan hareeyay lagu soo afjaro. lama oga sidoo u dhaqangeli doonaan labadaas qodob oo inta badan ba shirka miiska loo saaray mar hore sida ay u dhaqangeli doonaan oo u meel mari doonaan.